أنا قاب بيرس كفر فلان عيال يجري ما حين وحول اعتراف كذا ديار صور أنا كولا ما هو صور اعتراف كيا ها مركا قلت إلهي أرنت متخير قبطالة هنا وقريب إلهي وحي أنه إن بدر هذين أدونك حق سؤال هذا هشوا إلهي إنه صيد نبيار إنه جهر جرينا إلهي من كبرينا إلهي وحنا كبرينا إنه يقول يا خير وقريب وحنا كبرينا أنا في دم جودنا كأمور تذكر عاطفة بدن اللي جاي عمل لك لو بودن وعي قريم بدن يود حاله هذا ما أعرف فهم سي بعض الكلام هذا وردت إمس الدولة مصرنا حرير له هي إلى هبون إلى هنا خير نقول لك سوى كبرنا ده شرة مانت مرتي الباب كاس فرميد إن لقمنا الرجال سقوط يقف البكواتش marka ugu horeysa madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay marxaladan aynu ku jirnay munaasabadda aynu maanta kala kulannay ee dhowr iyo soddonka sannadood aynu dalkan ictiraafka u raadinaynay dowladdii ugu horeysay ee maanta ictiraafkan ku dhawaaqday oo isugu kan yeedhayna aad iyo aad buu mahadsan yahay sidii madaxweynuhu isaguba uu u sheegay de waa madaxweynihii lixaad ee dalkan soo mara madaxweyne kastaana dee kaalin buu soo buuxinayey nin waliba tiskiisuu soo dhigayey waxyaalo fara badan buu soo qabanayey halkii ay maraysay hadduu cabdiraxmaan ka sii qaaday isagii xukuumadda maanta talisaana nasiibka ay u yeesheen in maanta ictiraafka dowladda ugu horeysay aynu ka helana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hase ahaatee waxaa xaqiiqo ah geopoliticska guud ee adduunyadaba ka jira iyo ka mandaqada bariga dhexe dowladayna ictiraaftay ka jira iyo ka inaka regionkanaynu ku jirno ka jira waa suuragal inay dowladana soo dhaweynayaan dowladana aanay soo dhaweyneynin marka ictiraafka maanta waxay laga yaabaa oo xaqiiqo ah in maxaanku idhahda dad fara badan ay cadaawada inoo qaadaan arrintii cabdiraxmaan ka warramaya dowladda soomaaliya iminka maanta durbey manchursiga ka gashay baa ha noqoto oo colaad siyaasiya iyo colaad maxaanku idhahda dagaal labadaba imanaysa taasaa waxay ina faraysaa innaka markaa inaynu taxadir fara badan yeelano waan aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno munaasabadda qaaliga ah ee somalilan ku cusub waa munaasabad aynu in badan sugaynay ilaahay marka hore waxaan ka baryanaa inuu inooga dhigo mid khayr qabta bilow khayr qaba oo inoo horseeda intaa in ka badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qulubteena isku soo jeediyo dalkeennana midnimo iyo wadajir iyaynu marxaladan aynu ku jirno kaga tallaabi karnaa kaga gudbi karnaa ilaahay markuu qadara bay timi ilaahayna kuwa badan oo muftaax furmay haynooga dhigo marka u horeysa hambalyaana leel walaahi kulligeen maanta waa waxaynu muddo badan raadinaynay oo muddo badan u hargamaynay malaha taariikhda maalinta 26 wax inoo saaran yihiin dee tii hore 30 sanadooda aynu haysnayna waxa 26 tanna maanta waa 26 bishu maha 26 mataqaana mala khayrkeenu ku jiraa aynu ka warhayno dadkeenana aan hambalyeeno anagu baarlamaan ahaan baarlamaanka Israa'iil baarlamaanada ugu xoog badan buu ka mid yahay adduunyada iyo dawladdiisa maxaa tahay dawladda hogaamiya ee dawladdu ka dambayso ee taladiisa qaadato dee waxa laga maanaa waa inaynu u baahnayn weeye waa meeshii aynu ka geli lahayn baan qabaa anigu aynu hawsha ka bilaabi lahayn maanta bay hawshu bilaabantay wax badan oran maayo dee intii odayaashii iga horreeyey ee qaranku ay yidhaaheen un baan ayiday ilaahay haynooga dhigo ictiraaf khayrkiisana wata
deeqdiisii horumarkiisana leh kuwo badan oo berigii hore hangool faraarle iskaga keenhayena way musiman doonaan kuwo kalena colaadoodu way kordhi foojignaan iyo wadajirun baynu kaga guulaysanaynaa taana waxay la tahay maanta ninkii dee qaranka hagranayaa isagu malaa maba jiree aynu orodka uun iyo ilaalinta iyo foojignaanta kordhino unbay aniga igu muuqataa madaxweynaha iyo dowladdiisana waynu kula shaqaynaynaa madaxweynayaashu waa sidaadba u tidhi dee mid waliba waa riixayey laakiin nasiibkaagu adigu kugu soo hagaajay adigoo kursiga fadhiya maalintaa intoodii hore kumay soo hagaagin maanta unbay bislaatay maantana ilaah baynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynayaashii hore iyo ku-xigeenadooda iyo dhammaan xubnaha dowladda halka jooga madaxda axsaabta iyo dhammaan dadka reer somalilan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda somalilan ay maalintii u horreysay ictiraaf hesho oo aad u qiimo badan oo dadkeenu in badan sugayey oo aynu rajeynayno insha allahu tacaala in dowlado badan raacaan waddo furan noqoto wanaagii khayra inoo horseedo sidoo kalena waxaan la qabaa odayaashii kadoo dhawaajiyey in badani ay horumarkeenna iyo wanaaggeenna aanay ku farxayn ay cadow ku tahay oo aynu ka diyaar garowno gaar ahaan hay-adaha ammaanka iyo guud ahaanba dowladda waxaan leenahay kaalinta isu taaga awal horeba waa ka shaqaynayseen iminkana laban laaba dadka reer somalilandna waxaan dhammaan ugu baaqayaa in qof waliba mas-uuliyadiisa saaro qof waliba uu ammaanka iyo ilaalinta iyo xogta uu la wadaago hay-adaha ammaanka uu isla barbar taago oo uu kaalintii muwaadinnimo qof waliba uu isla barbar taago oo uu insha allahu tacaala mar walbana waajib saaraa bay ahayd maantana wixii ina soo doonta ama aynu dhib ka dareenno in meel looga soo wada jeedo weeye waxaanay golahanu ka muuqanaysa midnimadii somalilan iyo wada doonistii ay doonayeen oo halkan ay joogaan madaxweynayaashii dalka ka soo taliyey ku-xigeenadoodii labada gole shirgudoonkii labada gole iyo xisbiyadii qaranka dhammaan in la joogo madaxdii intoodii badnayd la joogo oo si midnimale looga soo qayb galay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa madaxweyne u yeedhay iyo iyagoo ajiibayba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka madaxweynayaashii hore madaxweyne ku-xigeenadii hore shirgudoonka labada gole xubnaha golaha wasiirada madaxda xisbiyada taliyaasha dhammaanba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn madaxweynaha waxaan uga mahad celinayaa kulankan uu isugu keen yeedhay ee la xidhiidha arrintan aqoonsiga dalka israa'iil ayna aqoonsadeen dartiid inuu inagu wargeliyo aynu dareen midnimo muujino annaguna sidaasaanu iyadoo qof waliba qorshe iyo ballan lahaa muhiimadda ay leedahay ayaa madaxweyne raggoo dhami kuugu yimi waxaynu doonaynay dee qaran baynu nahay dowladnimadoodii iyo gobonnimadoodii ay luntay dan baynu bidnay inaynu aayahayna dib ula soo noqonno ummadda somalilan shacbigeenna waa shacbi adkaysa badan 34 sannadood ayaynu maanta dariiqaa aan cidinayna aqoonsanaynu hayn mar qurana gadaal maynaan eegin maynaan ruxmin maynaan shakiyin waxaynu ku talagalnay halku dhigyadeennu wuxuu ahaa raggeenna waaweyn ee siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasheenu
wuxuu ahaa 100 sano hadday qaadanayso tanaasuli mayno waayo xaq baynu ku taagnay garna waynu lahayn meelaynu ka dabacniyo meelaynu ka jilacnayna maynaan joogin ragga aynu waxayna dhex mareen ee weli gobonnimadeennii diidan ee xaqeenna diidan ee xurmadeenna diidan ee xaasidnimadu haddana ka muuqato inaynu waxeellaba aan doonayn waxay u muuqataa inaynaan si wanaagsan aynaan isu garanaynba innagoo isku ummad ah isku afa wax wada lahaan jiray waxaa ka muuqataa inaanay si wacan bayno aqoon marka shacbigeennuna wuu mahadsan yahay waa bogaadinaynaa adkaysigaa mid ka badanna waynu ku talagelaynaa madaxweyne arrintani dee waa sidaas ragga hogaamiyaasha iyo odayaashu ka wada warrameen waa guul wanaagsan oo inoo soo hoyatay sida aad u sheegtayna waa dadaal muddo dheeraynu wadnay aqoonsi doonku madaxweynayaasha halkan fadhiya iyo kuwii dhintayba ilaahay ha u naxariisto way ka shaqeeyeen nina waxba lama hadhay adiguna intii aad timi dee nasiibkaagu waa taa maanta uu ku siiyey in dee dalka dunida dalkii ugu horreeyay ina aqoonsado